kulan wanaagsan saaxiibayaal 10 sano ayaa laga joogaa markii sanadkii 2011 uu wadamada Carabta ka bilowday kacdoonkii loo bixiyay Guga Carabta oo inta badan ka dhacay wadamada Bariga Dhexe iyo kuwa Waqooyiga Afrika. Gobolka waxa ka dhacay isbedel balse badankood kama takhalusin rajimyadii ama talisadii haystay. taxanayaal aan ku qaadaa dhigayno dib iyo dheef waxa laga dhaxlay ayaan idiin soo gudbinaynaa soo dhawaada mar kale kulan wanaagsan waxaan ahay Abubakar Maxamed taxanaha gadoodka Guga Carabta qaybteena koobaad waxaan ku soo qaadanaynaa dalka ubuucda u ahaa gadoodka dadweyne loona arko inuu si kasmale u maareeyay kacdoonka ee Tunisia منذ إقدام شاب على حرق نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد احتجاجا على منعه من بيع الخضر في سوق المدينة من قبل أعوان البلدية. دارق الطيب محمد والله قرن وجهي محمد بوعسيسي أيها أحد بشي أوليسي غاسكي جدود كددوينة تضبط كجري دلك تونسيا كعضون كاس والله يقيني جاسمين ريفولوشن. wiilkaas oo ahaa agoon uu aabihii saboolnimo kaga geeriyooday isaga oo 3 sano jir ah hooyadiina ay ka shaqayn jirtay beeraha magaalada bartamaha ku taala ee Sidi Bouzid si ay u maareyso nolosha yatiinta ayaa waxa uu tahli kari waayay si wadashada waxbarashada isagoo uga tagay dugsiga sare waxa uu dhabarka u ritay mas'uuliyadda reerka waxa uu bilaabay inuu la halgamo waayaha adag iyo waxyarida ka jirtay dalkiisa balse isagoo la daalaadhacaya dhibaatooyin dhaqaale kuna shaqaysta khudaar iyo miro ama fruits gaari gacmeed uu kula wareegi jiray wadooyinka magaalada ayaa waxa laf dhuun gashay ku noqday ciidamada milishiibiyada 17 bishii December sanadkii 2010 ayay saraakiisha dawladda hoose waxa ay kala wareegeen qaar kamid ah agabkii uu ku shaqaysanayay sida miisaanka oo muhiim u ahaa hawshiisa waxaanay ku andacoodeen inuusan haysanin shati eheladiisa iyo goobjoogayaal ayaa laga soo xigtay intii uu socday isku dhaca isaga iyo ciidamada in haweenay sarkaalad milishiibiya ah ay dharbaxday Buucasiisi waxa uu isku dayay inuu xaalkiisa la wadaago gudoomiyaha gobolka laakiin cidna dhagjalaq uma siinin taasoo dhaxal siisay inuu qaatay qaraar horseeday inuu dunida ka qarsoomo goor dambe oo maalintaas ah ayuu Buucasiisi soo qaatay gaas waxa uuna isku gubay ilinka xafiiska gudoomiyaha halkaas uu ka soo gaaray dhaawac halis ah muuqaal naxdin leh oo laga duubay wiilkaas oo la dhigay baraha bulshada ayaa ka dhigay mudaaharadadii toddobaadka socday inay laba kacleeyaan waxaana ay ku fideen guud ahaan wadanka Buucasiisi waxa uu dhibaatadii soo gaartay u dhintay 4 Janaayo sanadkii 2011 laakiin taliska waxa uu isku dayay inuu shiiqiyo shacabka caraysan waxa se waagu bariyay markii 14 January 10 maalmood kadib dhimashada Buucasiisi wadanka ka baxsaday Zayn al-Abidin bin Ali madaxweynihii talada hayay muddada 23 sano ah taasina waxay ka dhignayd in bil ka yar lagu ceyriyay bin Ali oo magangalyo weydiistay dalka boqortooyada Sacuudiga halkaas oo markii dambana uu ku geeriyooday intii uu socday kacdoonka Tunisia waxa ku dhintay 300 oo qofood halka 700 ka badan ay ku dhaawacmeen arrinka muhiimka ah ayaa sidee ayay u maareeyeen inay dhistaan dawlad la doortay oo ay uga badbaadeen in kacaanku ku noqdo kadeed khubarada ayaa ku sababeynaya in Tunisia ay tahay dal yar isir wadaaga oo leh horumar heerkiisu sareeyo muwaadiniin leh aqoon iyo dhaqan dulqaad laakiin in kasta oo sifooyinkaas ay jiraan sanadkii 2013 geediga Tunisia waxa uu qarka u fuulay inuu lumo iyadoo ay dhaceen laba dhibaato oo waaweyn oo kala qaybsanaan siyaasadeed oo daran iyo hakinta hay'adda kaliya ee dalka ee la soo doortay mucaaradka Tunisia oo uu dhiirigeliyay afgambigii ka dhacay Masar ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyagoo ku baaqaya in la rido dawladda Tunisia ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay dhibaatadaas ayaa ka dhigtay faa'iidooyinka runta ah ee Tunisia bandhig buuxa militariga iyo xoogagga nabad sugidda ayaa ka maqnaa dagaalka xisbiyada siyaasadda ayaa isu yimid si ay u helaan wax la isku afgartay iyo hay'adaha bulshada rayidka ah oo si wanaagsan u horumaray ayaa gacan ka geystay dhexdhexaadinta wada hadalka
tunisiya ayaa tan iyo markii ay ansixisay mid ka mid ah dastuurada adduunka ugu horumarka badan waxa ay qabatay 2 wareeg oo dheeri ah oo doorashooyin xor iyo xalaal ah sanadihii 2014 iyo 2019 taasina waxay keentay in dad badan ay u arkaan tunisiyada maanta inay tahay wadanka ugu dimuqraadiyadda badan gobolka bariga dhexe laakiin waxa cajiib ah isla arrimaha tunisiya ka caawiyay inay ka gudubto kala guurka sanadihii ugu horeeyay ayaa waxa ay sidoo kale dabreen isbedelkeeda mid kasta oo ka mid ah arrimahan oo kala ah rabitaanka isu tanaasul waaxda amniga ee daciifka ah iyo bulshada rayidka ah ee xoogga leh ayaa iyagoo leh siyaabahooda u gaarka ah waxa ay joojiyeen xoojinta dimuqraadiyadda Tunisiya intii lagu guda jiray kala guurka siyaasiyiinta Tunisiya waxay ku guuleysteen ammaan aad u sareysa sida ay ugu diyaarsan yihiin tanaasul iyo in la gaaro heshiis محمد باجي قائد السبسي oo madaxweyne soo noqday iyo Rashid al-Ghanouchi afayeenka baarlamaanka ayaa door weyn ka ciyaaray isu soo dhaweynta dalka intii lagu jiray xiisadii 2013 inkasta oo ay kala matalayeen dhinacyo isaga soo horjeeda siyaasadda haddana waxay sameysteen dawlad sal ballaaran oo wadaag ah oo kulmisay xisbigii cilmaaniga ahaa ee Asabsi ee Nida Tunis iyo xisbiga islaamiga ah ee Ghanouchi ee Annahda intii u dhaxaysay 2015-2018 laakiin ahmiyadda la siinayo waxa la isku raacsan yahay ee dawladda wadaaga ah waxay ka dhigan tahay in mas'uuliyiintu ay si weyn uga tanaasulaan dalabyada muranka badan dhaliyay balse daruuriga ah kuwaasoo kala ah cadaaladda ku meel gaarka ah dib u habeynta laamaha ammaanka iyo dib u habeynta qaab dhismeedka dhaqaalaha wax badan oo la isku raacay ayaa ka dhigay taageerayaasha labada dhinac oo aan la jeclayn tanaasul iyo dhexdhexaad isla markaana aad u doonaya inay taageeraan xisbiyada cusub ee ka qaybgalaya doorashooyinka 2019 inay niyad jabeen quusta ka dhalatay xulafaysiga Asabsi ee Annahda ayaa si huriyay korarka taageerada dhaqdhaqaaqa xarakatu dastuuriya oo ay madaxda u ahayd Cabir Muuse garyaqaan iyo siyaasi baarlamaanka ka tirsan xisbigaas oo si cad ugu baaqayay dib ugu noqoshada kalitalisnimada dhanka kale islaamiyiinta dhexdooda Annahda wuxuu lumiyay booskii isbahaysiga Karama oo ah xisbi aad u adag oo dhawaanahan ku lug lahaa loolan ka dhacay gudaha baarlamaanka jabka kala qaybsanaanta iyo ku dhawaad masraxa baarlamaanka ee maanta wuxuu khatar weyn ku yahay kala guurka dimuqraadiyadda iyadoo la cusboonaysiinayay baaqyada madaxweynaha ee ah inuu kala diro golaha oo uu dib ugu laabto nidaam madaxweyne oo adag siyaasadda la isku raacsan yahay waxay u muuqataa inay si sax ah u soo saartay kala qaybsanaanta iyo xasilooni darrada siyaasadeed ee ay ahayd in laga fogaado qodobka ugu muhiimsan ee Tunisiya ka dhigay dal maareeyay dabayshii riday kalitaliska ayaa ah tanaasul waa u tanaasulidda ama u turidda danaha qaranka taxanaheena gadoodka guga carabta qaybta koobaad oo aan kaga soo qaadanay isbedelkii ka dhacay Tunisiya iyo 10 sano kadib intaas ayaan ku hakinaynaa qaybteena xigta waxaan ku soo qaadan doonaa dalka jamhuuriyadda Carabeed ee Masar waa Abubakar Maxamed oo idin leh ha u daymo la'aanina waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin nabadgelyo